aad baa mahadsan tahay Cabdi Caynte ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo qabanqaabada shirka dhici doona Khamiista sida ay u socoto. bismillaahir rahmaanir rahiim ridwaan waa mahadsan tahay walaal qabanqaabadu si fiican ayay u socotaa maalmihii ugu dambeeyay waxaan halkan u joognay inaan hubinno in waxa la wixii dhoodhoojintii ugu dambeysay inaan sameeyno haddii alle idmana wafdiga qayb ka midana waa soo hormareen qaybihii kalena maanta iyo talaadaha iyo maanta isniina iyo talaado ay iman doonaan haddii alle idmo ay soo wada gaari doonaan waxaanan rumaysanahay in aan diyaar garowgii ugu dambeeyay aan sameeynay insha Allah taala waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlayo haddaan eegno maxaa ka mid ah ajandayaasha ay kula tahay shirweynaha London ee Soomaaliya 4 qodob ayaa ugu waaweyn midka koobaad wuxuu yahay amniga oo qodobada isna looga sii hadli doona ay kamid yihiin in la soo bandhigo heshiis siyaasadeed oo ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo ku saabsan maaragtay dib u qaabeynta haykalka hay'adaha amniga howlgalintooda iyo kala dambeeyntooda iyo in amniga Soomaaliya ay ku soo wareego gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo taasina ay ka bilaabanayso dhimid lagu sameeyo tirada ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee dalka jooga sanadka soo socda iyo in la qaado gabi ahaanba cunaqabateynta xagga hubka ee Soomaaliya qodobka labaad ee shirka looga hadli doono waa kobcinta dhaqaalaha dalka iyo dib u soo nooleyntiisa isna ajandayaal aad u fara badan ayaa ku jira waxaas ugu muhiimsan inaan soo bandhigno ahamiyadaha hortabiyada u leh dhaqaalaha dalka ee ku jira qorshaha horumarinta qaranka oo ay ugu horeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha tamarta biyaha iyo wax la mid ah qodobka labaad ee dhaqaalaha noogu hoos jirana wuxuu yahay sidiina looga cafin lahaa deynta aadka u faraha badan ee Soomaaliya lagu leeyahay si aan markaas u awoodno inaan deyn kala soo qaadan karno qodobka saddexaad ee shirka looga hadlayo waa siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka waxaana ugu muhiimsan inaan helno dhabbihii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah ee sanadka 2001 dalka ka dhacda kan ugu dambeeya ee shirka looga hadlayo wuxuu yahay inaan heshiis cad ka gaarno qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka u wada shaqaysan lahayn 4 sano soo socota diyaaleed Soomaaliya shirar badan hore loogu qabtay shirkan muxuu uga duwan yahay ay kula tahay natiijada ka soo bixi kartana maxay tahay waxa uga duwanaan doona in wax la taaban karo ay ka soo bixi doonaan oo ay kamid tahay in xagga amniga markii la yiraahdo ay nooc cadahay sidii aan amnigeena gacanteena ugu soo wareegi lahaa taasina ay ka bilaabanayso dhismaha ciidankeena dhimida ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ka qaadista cunaqabateynta hubka dalka muddo qaadan doonta dabcan wax sanad iyo 2 cunaqabateynta lagu qaadi doono maaha laakiin uu yaraan dhabbihii aan u mari lahayn nooc cadahay waxa kale wax la taaban kara noqon doona in aan qaadan doono ama aan ku dhaqaaqi doono talaabooyinkii loo baahnaa ee nalooga cafin lahaa deentana lagu leeyahay haddaan taa helin ma awoodi doono inaan helno dhaqaale aan dalka dib ugu dhisno waxay nooga xiran tahay deeqo dal lagu ma dhisi karo dad laga soo qaaday waxa lagu dhisi karaa awood aan u yeelano inaan lacag soo deynsan karno xoog leh oo balaayiin dollar ah taasina waa talaabo la taaban karo soo bixi doonta annaga iyo dadka deymaha nagu lehna aan ku heshiino qaabkii aan u mari lahayn midda saddexaadna waxay tahay siyaasadana inaan hadda ka sii shaqeyno talaabooyinkii ugu horeeyay ee la qaadi lahaa si loo gaaro qof iyo cod oo markii sanad ka dhimanta haddana aan sidii hore kale la dhihin qof iyo cod doorashadeeda lama qaban kare xal mastuur aan galno waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan anigu uma arko London inay dhamaad tahay meeshii aan ku dhamaanayna meeshii aan wax ka bilaabayna waaye shaqada hadda taanay koow tahay xukuumadda cusub iyo dawladda cusub laga rabaa fulinta waxyaabaha meesha ka soo baxay waxa uu ugu muhiimsan waxay tahay dadkii nagu taageeri lahaa oo hiil iyo hoobana siin lahaa inaan hal meel isugu keenay hal meelna ku ururinayno diyaaleed